Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa jira siyaabo badan oo aad uga farxin karto dadka kugu xeeran. Waa kuwan qaar ka mid ah tallaabooyinka kaa caawin kara taasi. Qodobka koowaad, dhoola caddayn. Dhoola caddayntaadu waxay ka turjumaysaa wanaag iyo soo dhoweyn, waxayna noqon kartaa macdan xoog leh oo kor u qaada niyadda dadka kale. Qodobka labaad, si taxaddar leh u dhegeyso. U yeel waqti aad ku dhegaysato dadka kale oo aad xiiseynayso dareenkooda iyo dhibaatooyinkooda. Joogitaanka iyo fahamka waxay ka qayb qaadataa dareenkooda farxadeed iyo xiisaha. Qodobka saddexaad, u soo bandhig caawimo. Noqo qof u firfircoon bixinta caawimaadda marka ay kuwa kale u baahan yihiin. Waxaa laga yaabaa inay u fududaato in laga caawiyo hawl maalmeedka ama bixinta talo iyo taageero go'aanada adag. Qodobka afraad, ixtiraam dadka kale. U ixtiraam dadka oo dhan iyada oo aan loo eegaynin kala duwanaanshaha dhaqan, bulsho ama qowmiyadeed. Ixtiraamka dadka kale waxay ka dhigan tahay inay dareemaan in la aqbalay lana qadariyey, waxayna kordhisaa farxaddooda. Qodobka shanaad, faafi wanaagga. Isku day inaad noqoto il tamar wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan. Iska ilaali cabashada joogtada ah oo ku faafi farxad iyo yididiilo ereyadaada iyo ficiladaada. Qodobka lixaad, u dabaaldegidda guulaha. U soo jeedi hambalyo iyo mahadnaq kuwa kale marka ay wax qabadkooda dhacaan. Dhiirigelinta dadka kale iyo u dabaaldegidda guulahooda waxay ka dhigtaa inay dareemaan farxad iyo qanacsanaan dheeraad ah. Qodobka toddobaad, daacad noqo. Si daacad ah oo wax ku ool ah u sii dadka kale. Toos u noqo oo ha ka waaban inaad muujiso mahadnaq ixtiraamka aad u hayso dadka kugu xeeran. Qodobka siddeedaad, hadiyada sii. Hadiyadaha yaryari waa hab fiican oo lagu muujiyo xiisaha iyo qadarinta. Waxay noqon kartaa hadiyad maadi ah ama fal yar oo lagu daryeelayo dadka kale. Qodobka sagaalaad, ka qayb qaado howlaha bulshada. Qaban qaabiso xaflado ama shirar dadka isku keenaya oo xoojiya xiriirka bulshada. Howlahani waxay gacan ka geysan karaan abuurista jawi madadaalo iyo farxad. Qodobka tobanaad, sameey tusaale. Isku day inaad dadka kale u noqoto tusaale wanaagsan. Habdhaqankaaga iyo ficilkaaga. Inaad noqoto qof farxad iyo yididiilo ka dhalata waxay dhiirigelisaa dadka kale, waxayna ku dhiirigelisaa inay ku dadaalaan farxadda. Xasuusnow mar walba in farxaddu ay tahay arrin shakhsi ah oo ay ku kala duwan tahay qof ilaa qof. Sidaa darteeda waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad siyaabo kala duwan ula macaamisho dadka kala duwan. Waa walaalkiin Cabdixakiin Axmed. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.